waxaan rabaa mar labaad inaan ugu mahad celiyo walaalaheen Turkiga macaawinada ay nala soo gaareen doraad ayay waxay timid diyaarad sida alaabihii qalabkii loogu hortagi lahaa cudurkan waxa la dhahaa coronavirus maanta waxaa kaloo timid diyaarad sida alaab badan oo kamid yihiin sariirihii loogu talagalay in la dhigo ICU-ga waxa loo qalabkii la xiran lahaa taqaatiirta iyo dadka la tacaalaya dadka cudurka qaba ay gashan lahaayeen waxyaalaha isku isaga protect gareyn lahaayeen inay cudurkan la kulmaan marka waa ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa inaan dhaano walaaleen Turkiga mar walba waa garab taagan yihiin ilaahay ajr iyo xasanaad ha ka siiyo waa dad mar walba diyaar u ah inayna kaalmeeyaan waa ugu mahad celinaya dhammaan shacbiga Turkiga madaxweynahooda ilaa iyo cid allaale cid ka qayb qaadatay inay mucaawinadan soo gaarto wadankeena Soomaaliya oo aad loogu baahan yahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa kaliya inaan dhahay ilaahay ajr iyo xasanaad ha idinka siiyo maanta waxaan u joognaa halkan inaan soo dhaweyno mucaawanada ay na siiyeen dawladda Turkiga wasiiradana way ka hadli doontaa insha Allah waxyaalaha nala siiyay sidaad ogtihiin dawladda Turkiga waa dawladda Soomaaliya aad u garab taagan mar walba oo dhib jiro haddana dhibkan haysta oo COVID-19 ama coronavirus dawladda Turkiga ma aha markii koobaad iyo markii labaad ay mucaawano keentay mucaawano badan oo keentayna runtii hadda waa la isticmaalaa haddana waxaan rabnaa inaan ka mahad celinno dawlad ahaan iyo shacab ahaan mucaawanada dawladda Turkiga u fidinayso shacabka Soomaaliyeed. Mahadsantihiin.